السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشي إذا قيمها يقدرين تنقمدنو كسو دوادا وحي ور عالم كان يديكهيني يقودهان بديقانا داي السومالي دكتو وركو وحي ديكا إيمانيا تلفزيون كعالمي جاي حرية 24 تيفي استوديو سدحي وكلية مقالة هرقيسة وركا هدي الله ودلي وقلادو وحيدي لسعودين دونتا أنيقو حمد محمد عبد الله حمدة الوايا قضبضا وركا قدور كورونا وحاكمي دا xisbiyada kulmiye iyo cud oo si wada jira uga warbixiyay kulan ay maanta la yeesheen gudida doorashooyinka Soomaaliland. Riya Cabdi Malik Muuse Caldoon oo saaka la horkeenay maxkamadda sare ee gobolka Maroodijeex. Maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeka ayaa sheegay in munaasabadda xuska 18 May laga dhigi doono 12 bisha barakeysan ee Ramadaan. saddex qof ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo ka dhacay agagaarka hotel Tawfiiq ee magaalada Muqdisho. daawadayaal intaas waa qodobadii warka ugu door corona imikii haatana iyagoo faahfaahsan. xisbiyada kulmiye iyo cud oo si wada jira uga warbixiyay kulan ay maanta la qaateen gudida doorashooyinka Soomaaliland siday faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariye Samsam Umar Cabdilaahi. waxa bariyihii ugu dambeeyay xarunta komishinka doorashooyinka Soomaaliland shir uga socday labada xisbi ee kulmiye iyo cud waxaana maanta markii shirkaasi uu soo dhamaaday warbaahinta si wada jira ula hadlay Cabdinaasir Qodax oo ka socda ucudiye Cabdicasiis Samaale oo ka socda xisbiga kulmiye waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaana hadaladoodii kamid ahaa hal la socoteen maalmahanba in labada xisbi ucudiye kulmiye 23 bishan ay runtii soo saareen go'aamo iyo heshiis ku saabsanaa sida ay doorashadu u qabsoomi lahayd 12 Disembar doorashooyin golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo runtii in badan muddo dhaaftay waqtigeediina runtii dhaaftay waxa nasiib darro ah golaha wakiiladu 14 sanadood oo runtii uu fadhiyo 14 sano ka hor baa la doortay 2005 bay ahayd ilaa alaana uu fadhiyo mar walbana muddo kordhis runtii uu helay taasoo dalkan iyo ummadan reer Soomaalilandba runtii caalamkuna in badan iyo halkii noogu yimaadeen sidii doorashooyinkaasi u qabsoomi lahaayeen ummadana runtii dibadhaca dambe uu mar walba uu ku keenayay magaranaysa niyad iyo moraal xumo dad hanaankan aynu qaadanay ee demonstrationkana u ah muxuu ahaayay sumcad xumo u ah in mar walba golayaasheena iyo magaranaysa doorashooyinkeena ay mar walba dib u dhacaan ay runtii waxaan iibino oo ah amniga iyo demonstrationkana oo dalkan ka duwan yahay baa guud ahaan Geeska Afrika oo sumcad iyo wanaag ku helayba runtii ay dib dhacaas u geysin karo in dunidu runtii ay magaranaysa macaamilka inala leedahay runtii ay naga joojiso marka doorashooyinkaas oo qaranka u muhiim ah ayaa runtii aanu runtii aad ogeeday inaanu go'aan aanu ka soo wasaanay labada xisbi marka komishinka doorashooyinka qaranka oo runtii maanta aan halkaan joogno xafiiskooda waxaan la yeelanay meetingkii labaad kulankayga hore wuxuu qabsoomay Arbacadii waxaan runtii ka wada hadalnay runtii maanta baan ka wada hadalnay sidii hawsha doorashooyinka iyo diiwaangelinta loo dardargelin lahaa muxuu ahaayay waqtiga yar harayna looga faa'iideysan lahaa dib u dhac dambana aan doorashooyinkaasi aan ugu iman maayir runtii miidiyuhu waxbayda kama qarsoona warka dalka yaala waad haysaan axsaabta qaranku runtii waxay ku mashquulsan yihiin sidii doorashooyinka u mudaysan bisha Disembar 12 ay noogu dhici lahayd oo la isku khilaafsanayn inay waqtigooda ku dhacdo sidee waxa ka dhiman ay u dhamaan lahaayeen baa ugu muhiimsan waxa runtii laga wada hadlayay go'aamadii labadan xisbi ay soo wada saareen maalinta dhaweyd iyo sidii ay u hirgeli lahaayeen baa ugu muhiimsan komishanka qaranka waa noo nimid waa komishan hay'ad walba qaranka shaqay leedahay marka shaqaday lahaayeen wixii kaga aadanaa
go'aamada axsaabta qaranku ay soo gaadheen say wixii annaga nagaga aadanaa ayaan runtii mataqaanaa ka wada hadalnay waxaanu ka wada hadalnay waxaanu dhammaantood isla wada qaadanay ayuunbuu runtii ahaa marka annagu laba xisbi ahaan maanta waxaanu ugu nimid komishanka qaranka iyo maalinta horeba go'aamada labada xisbi soo wada gaadheen ee khuseeya doorashooyinka oon lagu mulansanayn inay doorashooyinku inoo dhacaan 12 bisha Disembar cidiidana aanay jirin sidee u dhawoobi lahayd mataqaanaa dhan walba Xamsan Umar Cabdillaahi telefishinka caalamiga Xurriyad 24 TV magaalada Hargeysa Riya Cabdi Maalik Muuse Caldan ayaa saaka la hor keenay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex sida uu faafaynta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa saaka la hor keenay wariye Cabdi Maalik Muuse Caldan oo dhawaan ciidanka ammaanku ka soo xidhay gurigiisa ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ciidamada loo haystay wariye Cabdi Maalik ayaa qaar kamid ah saaka lagu horjeediyay fadhigii lagu dhageysanayay dacwadaha oo ugu warramay Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka u doodayay wariyaha Garyaqaan Mubaarak oo qaraal uu kaga hadlayay dacwadaha loo haysto ayaa sheegay in booliska eedaha ay soo bandhigay ay yihiin qaar ka hor imanay xoriyada qol Caldan ehladiisu maxkamadda damaarad ayay weydiisteen si uu dibadda u joogay inta ay socotay dacwadiisa maxkamadda dalabkoodii waa ku diideen walaa oo sameynayso qodobada hordhaca inaynan lahayn damaanad Maxamed Cabdi Xasan Xurriyad 24 TV Hargeysa maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Salteeka ayaa sheegay in munaasabadda 18 May la xusi doono 12 bisha barakeysan ee Ramadaan sida faafaynta warkaasi inoogu hayo wariye Cabdirasaaq Sharmaake maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteelko ayaa sheegay in ololihii nadaafadda ee caasimadda Hargeysa ay dib u bilaabi doonaan iyagoo la kaashanaya shirkadaha gaarka loo leeyahay oo kale maayar Cabdiraxmaan Solteelko wuxuu shacbi weynaha reer Soomaaliland ku wargeliyay in munaasabadii 18 May oo ku beegan maalinta qarannimada Soomaaliland ay dib ula soo laabatay madaxbannaanideeda la xusi doono maalinteedii rasmiga ahayd oo beegan 12 bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo ka hadlayana wuxuu yiri waxa kowka in dib loo xoojiyo dibna loo dhaqaajiyo ololihii nadaafadda kaasoo socon doona oo shirkadaha iyo dawladda hoose iska gacan kaashan doonaan in munaasabadii ay dhimay oo inagu soo fool leh dhammaan shacbigu sida ay uga qayb qaataan qof walibana aqalkiisa iyo nadiifiyo calankiina ka taago iyadoo lagu qaban doono munaasabadda xilligeedii ay dhimay su'aalo badan bay dadku soo weydiinayaan su'aalaha waxa weeye bishan waxa la qabanayaa waqtigeedii caadiga ahaa maalintii ay dhimay iyadoo ka badana 12 ka badana ku beegmasayaan filayaan geesta kale maayar Cabdiraxmaan Solteelko ayaa shacbiga ku dhaqan caasimadda Hargeysa ugu baaqay in aan loo dul qaadan doonin xoolaha kala duwan ee shacabku ku dhaqdaan gudaha magaalada Hargeysa waxaanu yiri xaqiiqtii xoolaha in la sii xoojiyo degmo kasta iyo waaxda arrimaha bulshada u qaabilsanaa ay ka shaqeysa hawsha qofkii xoolaha magaalada iskaga soo daayana isaga ay u dhibaato tahay khaasatan geel iyo loo yaadhiba waa guud ahaan cid kasta loogu dul qaadan maayo saddexda nooc miduu yahayba Cabdirasaaq Sharmaake Xurriyad 24 TV Hargeysa saddex qof ayaa ku dhaawacmay qarax miino ka dhacay agagaarka hotel Tawfiiq ee magaalada Muqdisho siday faafaynta warkaasi inoogu hayso wariyahayaga Nasriin Saciid Cabdiraxmaan qarax miino ayaa maanta ka dhacay laamiga horumar nawaaxiga hotel Tawfiiq waxaana ka dhashay khasaare laakiin ka tirsan hay'adaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dad shacab ah askari goobta mariyay ilaa 3 ruux oo shacab ayaa ku dhaawacmay qaraxa sidoo kalena waxa dhaawacmay askari boolis oo saarna mooto bajaaj wadada maraysay saraakiisha ciidamada ayaa qaraxaasi sheegay in ay ahayd miinada nooca laamiga la dhigay loo yaqaan soo boodada soo waxyeelaysay dadka shacabka goobta qaraxu ka dhacay ee ku dhow hotel Tawfiiq ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shile gobolka Banaadir waxaana durbadiisa halkaas soo gaaray ciidamada ammaanka oo baaris ku sameeyay goobta qaraxu ka dhacay Nasriin Saciid Cabdiraxmaan Xurriyad 24 TV magaalada Hargeysa waxaa maanta xilkii la wareegay maamulaha cusub ee dugsiga sare Maxamuud Axmed Cali sida faafaynta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Gacayro maanta si rasmi ah xilkii loo wareegay maamulaha cusub ee dugsiga sare Maxamuud Axmed Cali Axmed Balayax waxaana xilka wareejiyay maamuluhu hore dugsigaasi Deeq Muuse Guuleed maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland uu magacaabay maamulaha cusub ee dugsiga sare Maxamuud Axmed Cali Axmed Balayax oo ahaa maamulihii hore dugsigaasi soo maamulayay ku dhawaad 20 sano balse xilkaasi laga qaaday kadib khilaaf dhexmaray wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ee xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo Cabdilaahi Ibraahim Habban
mudane manuu ardayda la hadlayay maamulaha cusub waxau yidhi aad baan ugu faraxsanay inaan mar labaad kusoo laabto dugsiga waxaan idinka codsanayaa ardayda macallimiinta iyo shaqaale weynaha dugsiga inaad ila shaqaysaan si wanaagsan ayuu yidhi maamulaha cusub ee dugsigaasi cali axmed balaya ardayda macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiga sare maxamuud axmed cali ayaa waxaa wejiyadooda laga dareemayay farxade kuwaasi ku faraxsan dib u soo celinta maamule cali axmed balaya dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ayaa ah mid ka mid a dugsiyada dowladdu gacanta ku hayso waana mid ka mid a dugsiyada ugu magac weyn dalka kaasi oo loogu magac daray aabihii waxbarashada somalilan ee maxamuud axmed cali cabdiraxmaan maxamuud haybe tv-ga caalamiga ee xuriya 24 t v hargeysa kuliyadda tababarada saxaafadda xuriya media center oo qaybo casriya lagu soo kordhiyey sida faahfaahinta warkaasi inoogu eegayo wariyahayaga xamse xadaari xarunta xuriya media center waa xarun ka kooban qaybo kala duwan sida qaybta tababarada saxaafadda qaybta qoraalka ee degalka website-ka oo la yidhaahdo xuriya newsnet iyo qaybta telefishinka oo suxufiyiinta ugu wanaagsan ee tababarka dhammaysta ay ka shaqeeyaan haddaba waxaanu ka waraysanay siday tababarka u qaataan qaar ka mida suxufiyiinta halkaasi tababarka uga socdo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wallaahi waxaan odhan karaa waxyaabo badan bay kaga duwan tahay horta kuliyad waan soo maray sii dhan baan soo maray markaasaa darteed xaggan kaleetana waan ka dhigtaa haddana aan wadaa waxbarashadii balse waxay kaga duwan tahay kuliyadda siidham nalama odhan jirin maxay ahayd tooley kamaradaa laydinka duubayaa barnaamijyada mar walba qabsada xaggan waxay kaga duwantahay baan odhan karayaa mar walba iyadoo nala leeyahay qabsada barnaamijyada oo macalinkii na dhiirigelinayo xagga qoraalka calaamadihiina laga dhisayo dhinac walba si fiican baan ugu baranaa habkii qoraalkii oo laga dhisayo practicalkii oo studio dhexdiisa ku qaadanayno siyaabo badan cabdiraxmaan maxamuud haybe cabdiraxmaan gacayro iyo madaxa howlgelinta cabdikariin istaji ayaa iyaguna ka warbixinaya siday shaqada ugu socoto iyo hanaankaay ku shaqeeyaan way kala duwan yihiin sida wararka loo diyaariyaa wararka laftoodana kala duwan oo qaarna waa hard news qaarna waa soft news marka koley dee markaanaad bilowdo hawsha war diyaarinta iyo markaad dhex gasho way kala duwan yihiin koley markaad bilaawayso hawl adag weeye laakiin markaad dhex gasho wixii aad fahanto iyo qodobadiisa la ilaalinayo 5 milyan hajka marka aad sii dhex gasho runtii waxay ku noqonaysaa dee wax iska fudud ma garanaysaa dee iska easy laakiin hore dibadda ka joogto runtii waa adkaanaysa way adag tahay inaad war diyaar shaqaalada dee waxaan howlgeliyaa insha Allah subaxii iyo adigu dee xilliyada ay shaqadu jirto oo ay shaqooyinkooda ay kala qabsadaan ilaa anigana ku dhaho markaa mid kasta waxaan u xilsaaranay dee siduu shaqada loo igmaday uu ka soo baxo waas ayaan baan u xilsaarnaa gudoomiyaha xarunta xuriya media center cali maxamed ibraahim cali saxaafi ayaa isaguna sharaxaad ka bixinaya qaybaha kala duwan ee warbaahinta xuriyo ay ka kooban tahay iyo siday u shaqeeyaan isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi xuriya media center waxay ka kooban tahay 3 qaybood qaybta koowaad oo ah qaybta tababarada oo runtii kuliyadda qaybteedan tababaradu waxay bixisaa adeegyada ama maxaa la dhahdaa tababaro la xiriira kobcinta iyo sarab qaadida dhinaca mihnada suxufiyiinta oo matalan saxafiga waxaanu tababarka aanu siinaa waxweeyaan kow bal marka hore had iyo jeer sidii u fahmi lahaa dhinaca qoraalka afka hooyo oo waayo had iyo jeer waxa laga yaabaa maadaama af soomaali aynu ummadda ugu gudbinayno oo afka hooyo aynu ugu gudbinayno wararkii iyo macluumaadkii kale ee TV-ha ka baxo ama idaacadaha ka baxo ama joornaal lagu qoro ama degalada online-ka ee website-iska lagu qoro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan af soomaali saxan marka koowaad in la helo waayo waxa weeyaan tiirarka af soomaaliga sidoo qofka af soomaali saxan waxaan u jeednaa farshaxanimada qoraalka qoraal ku dhisan Soomaaliyeed oo lagu kala horreeyay qoraalka inuu leeyahay sidoo kale qoraalka oo dadku waxa laga yaabaa inuu qofku xun iska qoro laakiin fahamka ah ereyada la bilaama ereyada aan la bilaamin iyo guud ahaanba afka hooyo inuu qeyni qofkii ka noqdo ee koobaad ah halka ayaan uga sii amba qaadnaa sidii warar iyo barnaamijyo qofku u diyaarin lahaa casharo ku saabsan dhinaca tababarka ee aan siino halku dhiga
ugu muhiimsan hadii jeer sheegnaan waxa weeyaan qoraaga wanaagsan ayaa suxufiga wanaagsan ah sidoo aan u soo saari lahayn suxufiyiin qorayaal ah oo ummadda si fiican ugu shaqeeya qaybta labaad waxa weeyaan qaybta website-ka oo runtii iyadana qoraalada iyo warka lagu baahiyo qaybta saddexaadna qaybta xoriyada 24 TV oo ugu talagalay suxufiyiinta kuwa ugu wanaagsan ee tababarka sidii loogu talagalay u qaata inay ka shaqo galaan oo hadhow iyagoo laga yaabo inay halkan ka shaqeeyaan in TV kale ay u gudbi karaan sababtoo waxa weeye annaga had iyo jeer suxufiga aan tayadiisu wanaagsanayn warna uma dirno barnaamijna uma dirsano laakiin marka qofka aan warka u dirsano oo barnaamijka u dirsano taa macnaheedu waxa weeye waa qof tababarka sidii loogu talagalay u qaata waa qof dhammaan warbaahinta kala duwan ee Somaliland ka shaqeyn kara kuliyadda tababarada saxaafadda ee Xuriya Media Center waxay ka shaqeysaa horumarinta iyo tayeynta tababarada suxufiyiinta waxayna sare u qaadaa fahamka iyo aqoonta suxufiyiinta iyada oo dhammaan adeegyada suxufiyiintu ku shaqeyn lahaayeen ay ka helayaan xarunta tababarada ee Xuriya Media Center. waa tahay daawadayaal wararka kale ilaa haddana soo gaadhayana waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa magaalada Addis Ababa kaga qayb galay maalintii labaad shir lagaga hadlayo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya dhamaystirka hanaanka deyn cafinta ee Soomaaliya waxaa maalinkii labaad inoo socda shirka dib u eegista barnaamijka saddexaad ee deyn cafinta Soomaaliya aan la leenahay hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF way ku qanacday dhammaan sidaan uga soo baxnay shuruudihii SMB3 waxaanu rajaynaynaa inaanu guul noogu dhammaado ayuu yidhi wasiir Beyle mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya hadda ay taagan tahay meel adduunku wada og yahay soo ah in dhabihii guusha ay ku socoto shirkan ayay Soomaaliya waxa uu leeyahay ahmiyad gaar ah maadaama hay'adda taageerada siisa Soomaaliya ay wadaan isla xisaabtan dabagal ku aadan halka ay ku baxaan dhaqaalaha Soomaaliya Caawil Cabdiraxiin Kayse Caawil Burcaawi telefishinka caalamiga ee Xuriya 24 TV magaalada Hargeysa ra'iisul wasaaraha Hindiya oo booqday deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaashiisu sida ay faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariye Hodan Cabdi Muuse ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa guddiga doorashooyinka wadanka Hindiya u gudbiyay waraaqihiisa musharaxnimada doorashooyinka guud ee la filayo in ay dalkaasi ka dhacaan bisha soo socota isaga oo doonaya in uu talada dalkaasi qabto markii labaad ra'iisul wasaare Modi wuxuu socdaal ku tagay intii aanu waraaqihiisa musharaxnimada gudbin gobolada waqooyiga halkaasi oo ay taageerayaashiisu ku badan yihiin waxaana socdaalkiisa ku helinayay gudoomiyaha xisbiga Hindu Nationality ee BJP iyo xubno kamid ah golihiisa wasiirada waxaa si weyn gobolada Hindiya ugu soo dhaweeyay dadweyne tiro badan oo taageersanaa iyaga oo ruuxayay calanka xisbiga iyo boodhar magaca ra'iisul wasaaraha iyo sawiradiisu ku xardhanaayeen ra'iisul wasaare Modi ayaa talada Hindiya qabtay sanadkii 2014 isaga oo waqtigaasi ku guuleystay codad gaadhaya 580,000 oo cod iyada oo aanay ilaa hadda jirin cid awood badan leh oo doorashadan kula tartamaysa iyada oo la filayo in ay 1.7 milyan oo qof ay goobaha codbixinta u dareeraan 19 bisha May ee inagu soo aadan waa Hodan Cabdi Muuse Xuriya 24 TV magaalada Hargeysa daawadayaal intaasi waxaa inoogu eeg war wixii caalamkaan idinka haynay iyo guud ahaanba deegaanada ay Soomaalidu degto warku wixii idinka imaanaya telefishinka caalamiga ee Xuriya 24 TV istuudiyihiisa dhexe magaalada Hargeysa ku leeyahay warka waxaad ila socotiinaysaa anigoo Xamdi Maxamed Cabdilaahiya intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah